أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم وكيلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذن سلام يا أصحابي وإذن سلام يا waxyar ka hor waxaan ku jiray Saara, maasha Allah, Saara cali soo dhawow. I miss you a lot. Maalma waxaan ku jiray page-ka, waa inaan page-ka baranaan rabaa. Page-kan ka soo baxay hadda because waxaan rabay information baan waday. Information-kaasaan waxaan rabay meel aan idinku sheego. Waxaana soo baxa oo baallaha iga rifa, soo ma aragtaan? Facebook-gayga waxaasaa ku dhaca asxaabey. Facebook-gayga waxaana ku dhaca, laakiin wuxuu yahay ma aqaano. qofkaasaa i tuuraya, waxaasaa la igu sameynaya. So I don't know, dad baa isoo ataagaraynaya oo raba inay baallaha iga rifaan. Marka way dhacdaa marka waa iska celinayaa. Kolley page-ka haddaan gala ma lahan, laakiin Facebook-gaygu cadow badan buu yeeshay. cadowgaasaa isoo ataagaya, ma garanayo laakiin micnihooda maxay yihiin. marka haddaan saas dhaho hadda ma u wareegayo xagga uma wareegayo. marka I don't know wuxuu yahay, ma garanayo. marka ma aan garan waxaas. no follower, maba rabo follower. So waxaan rabaa inaan idiin sheego, waxaan rabay waa la isqasayaa ciidamadii madaxii calool baa yaacaya meel walba. marka ciidamadii madaxii calool baa raacaya, waxbaa la igu soo ataagaya. laakiin kolley maanta waa la iigu maqnaa in la ii sameeyo. page-ka haddaan galo ma leh, laakiin haddii aan galo Facebook-ga caadiga ah waan ku arkayaa. marka waa laga baxayaa because waxaan noqday liidharad baan noqday. marka cadow badan baan yeeshay. qofku markuu liidhar noqdana cadow badan buu yeelanayaa. waxaan rabay inaan idin baro. hadda ka hor baan in badan baan waxaan idinka sheekayn jiray in aan ahaa in aan waddankan in badan joogay, in aan waxyaalo badan kala kulmay. taariikh nololeedkaygaan idinka soo sheekayn jiray. waxaasoo dhanna waxaan rabay inaan soomaalideenna wax badan barano. waxyaalaha taabuuga oo la isku dhajiyo inaan iska dayno, sida maskaxda loo inooga isticmaalayo inaan iska yarayno, inuu qof kasta naftiisa ku tashado, in aan ka baxno inaan dad u noolaano. waqti dheer bay igu qaadanaysaa kolley intaan wax bedelayo, laakiin I try my best. inta aan rabo maaragta waa try garaynayaa inta aan ka bixi karo. waa ujeedaan Facebook-gayga aan lahaabaa laygu qabsanayaa, laygu dhacayaa. waxaan idinka sheekeeyey taariikh nololeedkayga, waxaan idinka sheekeeyey meeshaan kusoo noolaa, waxaan idinka sheekeeyey waddanka intaan deganaan jiray, waxaan idinka sheekeeyey 3 caruur inaan meeshaan ku korsaday, waxaan idinka sheekeeyey ilaa childhoodkayga yaraantaydii inay single mother isoo dhashay, in aan waxyaalo badan baa social mediaha aan kusoo shubay. welina mar walbaba waa idin xasuusiyaa oo boorkaan ka jafaa. marka waxaan rabaa in aan idiin sheego ama idinka waramo waxyaalaha hadda aan maalmahan bartay. because dad badan baa hadda follower ahaa, meeshii followerkaan xiray. because meesha followerka haddaan xirtidna dad badan oo follower hay soo galaya yaraanaya.
marka waxaan rabaa halkan inaan idinka tuso aniga Mareykanka in badan baan joogay intii aan joogay waxaan hadda ka hor idiin sheegay inaanan weligay tigir qaadanin weligay inaanan tigir qaadan baan idiin sheegay inaanan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa i badbaadiyey because ciladu waxay la socotaa dadka followerka bay la socotaa marka followerku haynaga maqnaadeen inta fareenkayga hadday soo geli kartaa soo gasho inta kalena ayagay u taallaa okay dhibka iska badan laakiin Allah subxaanahu wa ta'ala xasbuna Allah wa ni'ma wakiilan ilaahay waxaan ka bari ilaahay inuu naga qabto wixii shar wada soo shadaadiintu way badan tahay dad u shadaadiinaha magaaladan jooga ilaahay subxaanahu wa ta'ala kullu hadda kuwa noogu daran waa Cabdixakiin iyo Siyaad iyo intay wataan Allah inuu naga qabtaan ilaahay horta weydiisanayna soo baryada ilaahay samadu mar bay furan tahay waana casar baana wali weysadiisa qabaa Allah waxaan weydiisanay inuu Cabdixakiin iyo Siyaad horta aniga iga qabto labadaas shirkooda Soomaalidu waxay u qabtaa inay ceeb tahay ama inay dad u nool yihiin qofkii sharka kugu haya wuxuu doona ha ahaadee Allah baa laga magan galaa inuu ilaahay ka qabto marka waxaan rabaa inaan idiin sheego meeshaan aan idinku hayaa anu weligay tigir ma qaadanin marka ninka Siyaad la dhahan idin barayay Siyaad waa ninka waayahan ku shaqeysta ninkan social media caruurtayda saaray aniga isaaray maalin walba igu caaya maxkamadaha igu soo fiidkiciyay naaga badan oo ka raayay meeshaan keenay dhibaato badan hayay waxyaalo badan igu sameeyay ninkii saas ahaa maxkamadihii u dambeeyay aan ku soo guuleystay proof halkan aan idin soo saaray maalintuu arkay in laga guuleystay sheekadii cay iyo aflagaado iyo inuu caruurihii yararka ahaa shaqo ka dhigto qofka weyn oo adultiga wuxuu doona ha dhaho laakiin inuu caruuraha ku soo guriyo noqdo waa kind of waxa weeyaan controlkii baa ka lumay so waa laga raayay so hadii laga raayo waa okay ama waa rayn lahayd ama waa laga rayn lahaa waliba asagu ma ahayn wixii haystay laakiin dad uu soo diray ahayd anyway dadkaas oo dhan waxa wata madaxda u ah waa ninka lacagta leh waa Siyaad waxaan idin sheegay inuu Siyaad al-shabaab yahay waxaan idin sheegay inuu Siyaad al-shabaab yahay waxaan idin sheegay inuu Siyaad al-shabaab yahay al-shabaab marka maqashaan waa carartaan inta al-shabaabka ahi kalsooni kuma qabi karto social media kuma jiri karaan waa cararayaan waa inta al-shabaabka ahi markay maqlaan qof baad wacaysaa markaad oranaysaa qofkaas waa al-shabaab baad oranaysaa qabababa uu ka cararaya muxuu cararaya because he is wuu yahay haddii maanta oran gurigayga al-shabaab laga leeyahay haddaanan ahayn ma waana ka sheekayn karinin yes waa ka sheekayn karaa laakiin haddaan ahay dee waan cararaya waan baqaya aniga in layga sheekaynayaan moodaya Siyaad horta hore waa al-shabaab laakiin al-shabaabka markaad maqashaan masaajidaan fiirin jirnay oo dhagaha u taagi jirnay al-shabaabku masaajidka ma joogo al-shabaabku meel buu taagan yahay ninkan lacagta leh marka oo Siyaad aniga horta waa isuud gareeyay Soomaaliyeed muxuu yiri wuu isuud gareeyay halkan waxaan ku hayaa warqad uu suud gareeyay 6 qof oo Mareykan inta Minnesota uu ka suud gareeyay waa kuwaas 6 qof uu suud gareeyay meeshaas ku wada qoran civil family waxa waaye marka 6daas qof wuu suud gareeyay muxuu ku suud gareeyay dee waa sida MMS oo kale hadda uu suud gareeyay oo kale buu Siyaad 6daas qof oo kale u suud gareeyay Siyaad aniga Mareykanka intaan joogo waligay tigir la ima siinin taxi driver baan noqday oo limousine baan waday oo limo driver baan ahaa oo in badan baan travel gareynayay bus driver baan ahay class B baan wataa personal baan ahaa business baan ahaa intaas waan safri jiray state to state baan travel gareyn jiray waligay ma qaadan parking ticket intaan dhigo la isiiyo waa arkay wado oo intaan ku shubay ama lacag oo u yimid hadda maanta intaan maxkamadda lahaa ticket la isiiyay baa iigu jira $14 oo intaan wada dhigay 1 hour aan ka soo daahay oo ticket yar la isiiyo $14 waxaasoo kale way dhacdaa laakiin tigir caadi ah layma siinin Siyaad intaasoo warqadood baan ka hayaa waxaa ugu jira Siyaad horta magaciisa waxaa la dhahaa Siyaad Cabdullaahi baa la dhahaa because waxaan waa public qof loo diidi karo malahan qof kasta la soo bixi kara Siyaad Cabdullaahi baa la dhahaa dhalashadiisa
taydii bannaankay saaran tahay dhalashadaydii iyo tii ilmahaygaba bannaankay saaran tahay tiisa waxaa la dhahaa abril 1974 ya bisha afraad 12 1974 baa ugu qoran inuu dhashay 64 civil traffic baa ugu qoran civil traffic 64 baa ugu qoran qofka beenlowga ah afku ka hadlaa anigu se af ka hadli maayo waa kan wakaasa warqadihiisa 64 waa ujeedaa numberka wallaahi markaan maanta 64 arkay waan yaabay 64 ya subxaan allah 64 magaalada haddaad ku aragtid he is a man suudka iga dheh ranger rovalka iga dheh xaragada iga dheh xaafiiska quruxda badan iga dheh businesska u kala socdaiya lacagta iga dheh laakiin he is 64 muxuu waxaynayay ma nin caafimaad qabaa mase waa nin jirin because qof caafimaad qabahay hooyo soomaaliyeed oo dulmano ah oo dhibkeedii ayadu social media lasoo fariisatay ma uu suudgareeyeen gabar baad raacday ina kuma suudgareeyeen ee xataa hadduu ku suudgaraynayo wax sax ah hadduu kugu haysto wuu kugu suudgarayn karaa laakiin gardarro inuu kugu suudgareeyo waa laga qurux badnaa marka horta siyaad waa kana siyaad waa macalinkan 64ka criminal mataqaanaa trafficka haysta 64 65 baan dhashay 64 unbelievable so ma nin fiican baa ma nin xanuunsan baa ma nin jiran baa ma nin caafimaad qabaa muxuu yahay so markii caruurtiisa uu social media saaray waa yaabay so markuu ninkan uu ku shaqaysanayo gurigiisa dhexdiisa lacagta loo diraayo al-shabaab uu ku waxaynayo waan yaabay so markuu ninkaanu qaf leeyahay oo gabadhii ay kala tageen maxaa daba dhigay ma gabadhu ma cayrsanaynin laakiin asagaa gabadha cayrsanayay inuu gabadhii cayrsado maxaa daba dhigay gabadhan qofkay doontay raaci kartaa gabadhan lifekiisa way ka baxday gabadhan life buu samaystay gabadhan naag buu guursaday gabadhan gurigeedii buu ka saaray waxaasoo dhan waa dhacda meelo badan ba isla soo mareen dhibaato badan buu u geystay marka qofkay raacdana waa cayrsanayaa miya waa sheekadu cabdixakiin casmaan nuur uu la taagan yahay dab casar iyo maama malyuun haddii ay aadaan show dhigtaan kaamirooyin baan hor dhiganayaayo mataqaanaayo to waan weerarayaa xaggee ku noolahay anigu ma laascaanaan joogaa mise american joogaa I am from Minnesota so haddaan soomaaliya aaday ama etoobiya aadayana dee meel aan xornimo ku haystaan aadi lahaa laakiin inaad xornimada naga qaadid oo tiraahdid haddii loo tago gabadhii common hoostayda ku qorta wuu cayrsanayaa marka ninkaas raacay adiga markaad businesska iyo suudka iyo ganacsiga iyo gaariga iyo adduunka iyo aragtid waxaad dhahaysaa ninkaan muxuu ka doonay laakiin 64 traffic criminal traffic is easy 6 mataqaanaa to low suit is easy street orderka waa idiin soo wadaa keesas kale baa jira oo la xiray oo aan soo wada ayagana baa jira oo idiin keenaya so ninka aniga caruurta aad la yaaban tihiin ragga soo dhigayahay waa raggaas horta hore ninka soo dhigaya iyo ninka soo dirayaaba waa raggaas marka you think so inaan u joojinayo anigu ama u aamusayo inuu social media iga fariisiyo rabaa laakiin social media maalintan soo galayay gabdhihii igu dayday waa gabdhaha ooyaya sida qurux ubooy oo kale waa dadka inta igu dayday ayadoon weliba social media publica meeshaan kale wajigeeda soo kaysan inta conference call ka hadashay social media markii warkeedu soo dhex galo ayadu weliba u sabab ahayd haddana waxaan keentay laakiin maanta midda haysataa ka daran maxay tahay wiilkeedii yarka ahaa ISIS iyo al-shabaab miday tahay maqale baa loo tababaraa qaahiru jooga ayada ma ka shidan tahay mise kama shidna kood qofkii dulmi ka shaqeeya asagay ka shidan tahay qurxbooy shalay
aabaheed intay Jamaican xareysato yiri gurigayga igama soo gali karaan hooyadii aabaheed qaracanku aabaheed oo qaracmay reer Minnesota oo dhan baa iga marxaati anigu ma ogeyn hadda warkaas la ii keen soo ma aragtaan dulmiga ilaahay raali kama ahan laakiin waa in la iska daayo aabaheed halkaas gaari ku kala gooyay qaracanku qaracmay shalana maxay lahayd ana ilaahad waa baarantaha Does that make sense? wax kasta marka ilmaha aad ka oydeen oo ka naxdeen oo aad uga qayliseen oo aad uga naxdeen oo waxba ma gaarayaan ilmahaani inaan 3 caruur lahaa everybody knows gabadha telefoonkeeda inta lagu qoray la yiri ma taqaana ninkii arkow orodoo fuulna de gabadha ayada waxeeda iska leh fuulmaduna hadda kor baan idin sheegayo fuulmaduna ma ahan ay ma ahan iyo ceebe waa dambi hore idinku sheega ka gabdhaha dambiga looga dhigo ama taabuuga loogu haysto anigu ilmahayga anaaba ka tababaray inaan loo haystan wiilkayguna hadduu hadda uu mataqaanaa arko iyo hadduusan arkinba midna culays kuma hayso gabdhihii madaxda ahaayo sharafta lahaayo aabahood korsadayo 20 jirka yahayo ninka quruxda badan qabo oo halkaas xildhibaanada ayo fadhida bubaalaha ka rifaayay laakiin yaa u sababa mataqaanaa cabdi warsame cause wiilkan kow wixii albixiyey oo dadka ku diray oo dadka oo magaagiyay hadda meelaha lagu doorto kuma ba arko miyay dirireen talo bam hadana bam bamba bartana balaha la iska rifaayay cabdi warsame ba horta wiilkan albixiyey laakiin horta cabdi warsame asna ma shabaabku ku jira bam maybe because ashabaabku dawladdu ku jira way inoogu jira soo waa Soomaali ashabaabku ISIS baabadadiyo kale ku jiraane ashabaabku waa Soomaali kaliya marka cabdi warsame asagu ma ashabaab kamid yahay سيبو أولاد ديل قرينا يا عبد الحكيم وأنت أصل حاجة الشباب ودرا سياد وأشباب عبد الحكيم وأشباب عبد ورثمنا طلعوا موها وسور هذين إياه هذا صاير أنا وسور شيء يا ما قرنا هاي so I don't care because دولة ودن كانوا وين جاي بنطي الشباب كعيد كلام مرة لين FBI هي بالله شقية FBI وعرورة ودن كانوا دلتي بقوا شقيسة so الشباب عرورتنا أو شقيسة دلنيردنا أو شقين ضدكنا أو شقين محبين لو شيء ما إيرك كسوداتنا الشباب صومالي بعد شيء الشباب إذا كان يدك احترام وأنا قرن إنسان because العجلة الدرايو عبد الحكيم وصقوا إس أي قاتة وصاق روح هايو يا لما تكون أفرتن كون يقولوا قال قد روح هايو يا إسكله عجيبو ستشوجا بم وهذا بم بم بابرتنا بالها لسكرفايا حتى هيبة ورشرابة عكارو إيمان وحتى هيبة والو صار I don't care not حافظ أرديس أما هذا حافظ أردينا شيلك لوجية هذا الشباب ما كوا عداته شيلك لوجينا يا هو وعبد ورسمي نكان سابو شلي هشيس أراها الشباب كأ سابو أسوق الدولة ده كتيرة نكان سابو هشيس كأراها بين بابرتاني MMS وحي خالده oo idinku dhex jira banaankaas soo dhigaysa waxayna ahayna idinku ma idinku kabayo ma idin dulmayo anigu laakiin hada America dulmaysan iyo hada caruurtaada dulmaysid iyo hada naftaada dulmaysid iyo hada naagtaada dulmaysid iyo hada dawladda dulmaysid intaba anigu waa soo keenaya wixii aan soo arko oo dulmi ah bartaasaan soo dhigaya هنو هذا الماها هم بررسي أرق ماها هنو حنيا هذا بركي دكوا ده دقاية ناقانا ديقا كوا ده دعية بقدين يقده مركورانا قف يقده أي يقده كبرنا إذا ما قادي ما يكفي عنتها نسوي الكيقا قادي أو سقاشين شره وسانقا أقواب تريناي أو قادي همت رب حي سبحان الله ننسى قاشين شركة حشون واي 120 شركة حشون هاي يسدن شر نو يقدروا يتون شركة حشون هاي ما نن قرات كود كحشون واي قرر يفتح رسم ايبا ويلكي كحشون هاي ما نن ابتجس كحشون واي ويلكي كحشون هاي ما نن اديركس كحشون واي ما نن الهي كحشون واي عندك حشون هاي كان راعي انا دوانين كان 64 إيش مقعي سبا هذا كبعد وابا 64 بم وهذا بم بين بابرتاني بالها لا اسكرفايا أنا قدرت كان مركا أدودان كهالية دت كان أدودو وحن إذين شيء أنا قو I need help سامارد بين وحيالها ويكحشوتا أنا قو حمانت أبا هنا هاي
gacantiinaan u baahanaha. maxaan u baahanahay? GoFund baan soo dhiganayaa halkan Facebook. GoFund baan soo dhiganayaa. qofkii aniga wax igu caawinayo halkaas igu soo caawi. hadaad gabar tahay, haddaad wiil tahay, haddaad dhalinyaro tahay, haddaad qof weyn tahay, qofkii aniga raba inuu i taageero oo i caawiyo, lacagta aniga siyaad iigu dhaaranayo ee uu iigu dhaaranayo inuu dumar ahaan ii aamusiyo waa abuser. wuxuu abuser ku yahayna waa idiin sheegayahay. labada gabdhood iyo gabadha dhashay waa 3 gabdhood. haddii wiil ku dhex jiri lahaa maybe wuu ka xishoon lahaa, laakiin naaga nacay buu gabdhihiisa xataa uga xishoon waayay. MMSna warkeeda ba iska daa, habar halkaan qaylinaysa ma uu rabo warkeeda. marka GoFund baan usoo furanayaa account. qofkii igu caawinayo halkaasaan soo dhigayaa, magaciisaan soo sheegayaa, life baan soo gelayaa. qofkii igu caawinayo waxaa la iga caawinayaa low suud. marka lagu suud gareeyo lawyer baad u baahan tahay. lawyerkuna lacag buu rabaa. marka inta mataqaanaa ay og in aan anigu dulmanaha u hiiliyo, intaasaan u baahanaha. iyo inta bili-aadanimada taqaana inaad halkaas iigu soo caawisaan. markaasaan waxaan ogaan karaa numbariska Soomaali raba in la caawiyo, inaan ka baxano aamuska, inaan caruurteenu biis hesho, inaan anagu biis helno, in dumarkeenu life helaan, inaynu hadli karno, inaan wixii khalada diidi karno, in gabdhaheena guurkooda uu dego, in caruurteenu noloshoodu adka fiicnaato, in ilmaheenu iskuulka dhigtaan, in wixii nagu khaldamo iska qaban karno, in wixii dadka ka gardaran aan ka celin karno, in guryaheenu wanaag iyo qurux iyo fiicnaan ku dhisnaadaan, in gabdhaheenu si fiican oo qurux badan loo guursado, in gabdhaheena mataqaana la gadaayo la joojiyo, in wiilasheena balwada mataqaanaayeeto la siinaayo la joojiyo, in aan mataqaanaayeeto gabdhaheena si walba inta loo galo advice-ka laga qaato, cellphone-ka inta lagu rido naayaa waa ku sheegaya haddii kale naayaa. maanta inta gabar uu inta wacay Cabdixakiin uu ku yiri naayaa faraan kaa haya, naayaa war baan kaa haya, naayaa kanaan kaa haya, naayaa sawir baan kaa soo dhigaya, naayaa ninkaagaan soo dhigaya. waad arkaysa nimanku maanta soo dhigay. waa niman ku yiri waa gabar tiri war maxaad maamada ka rabtaa buu ninkeeda maanta soo dhigayay. habeen hore waa arkaysan gabadhii caruurteedu ilaa waa loo tugsanayaa, waa shelter bay degan yihiin. gabadhaas Niciima u keentay. gabadhaas conference call-ka nagula jirtay, guur qurux badan, guri qurux badan, nin shaqaysta, gabar shaqaysata oo danteeda taqaana oo maasha Allah family qurux badan oo caruur qurux badan haysta. ayadaa la saaxiibtay. markii dambana waxay tiri social media kaala maamulin ilacay. markay diidayna Facebook ayadaa ku soo dalbato tiri soo dhig naagtaan. common bay qortay, yar commonkii buu ku soo dhiga. Niciimaana u soo waxaysay. marka waxaa soo dhan see uga hor istaagi karnaa, see communitygeenu meel kasta ha u noolaa ku noolaadeene, see long term life u heli karnaa, see ka bacdi dalkeena u dhisi karnaa. because annagaa diaspora ah. dalkeenina diasporahanu ku xisaabtamaya, inagu inagu xisaabtamaya. inagiina ninkaa yar ee wheelchair-ka saaran baa wuxuu inoo rabaa inuu toojar inagu haysto. waa diaspora. hadda Soomaaliya oo dhan diaspora laga qiimeeya. diasporina ninkaas 700 SI-da qaata baa u taliya oo toojar inagu haysta. ma income buu inoogu haystaa, ma caqli buu inoogu haystaa, ma diin buu inoogu haystaa, ma fiicnaan buu inoogu haystaa, ma xukun buu inoogu haystaa, maxaa looga baqayaa? ma la ii sheegi karaa? qofkii aan xishoonaynin anigaba Allah iga dhigay waa inaan ummadda laga qabtaa. laakiin qof halkaas 24 saac wajacalnaa layla libaasan wajacalnaa nahaara macaashan baa la yiri. qof 12 maalintiina ku dhex jira hurdo, 12 habeenkiina garaabo cunaya oo shiisho cabaya oo dadka dulmaya oo dadka caayaya. ma rayd baa? no. marka waxaasoo dhan sida looga hortagi lahaa waa inaynu communitygeenu isku, haddii kale waa inaan communitygeenu isku duubnaano. haddii kale wiilna kuu kici maayo, gabarna kuu kici mayso, ilmo iskuul kuu dhigan mayaan. waxaynu noqonaynaa xabad malay ah oo bad lagu dhex tuuray, mana kasoo qaban kartid. waa sida aan taaganahay. nimaan ubad dhalin oo asaga cali iyo caashi midna dhulka kama yaalaan, laakiin kaagu raba inuu ku khamaaro, kaagu balwada baraya,
kaagu daraaga baraya gabadhuu fuulaya waa gabadhaadi gabadhuu gadaya waa gabadhaadi gabadha wax soo xad la leeyahay waa gabadhaadi wiilka wax soo xad la leeyahay waa wiilkaagi wiilka lagu shabaaxaya waa wiilkaagi wiilka wax dil la leeyahay waa wiilkaagi wiilka al-shabaab loo diraayo waa wiilkaagi wiilka daraaga la baraya waa wiilkaagi wiilka jeelka galaya waa wiilkaagi yaa hogaanka u haya niman cali caasho midna haysan dowladii sharciga lahaydna qofkii cunuga dhalay baa baqaya oo la haysto oo cid waxa ku qaban mayso Soomaali walba waa aragteen Minnesota marka qof lagu dilo suuqaas asagoo qofka meydkiisa yaallo waxa weeye bay ku leeyahay dilay ma naqaamayno dhahnaa waynu naqaanaa laakiin waa baqaynaa cunugii dhaha waxaasaa la igu sameeyey cunug baa loo dirayaa dil baa la leeyahay waa la dilayaa markaasaa madaxa waxaa loo saarayaa America loo dirayo Mareykanka dilay oo saana dilay oo ba dad ka af dheer ba wixiina falkiina sameynaya dawladdiina kugu diraya waa laba afle dawladdiina asaa kugu diraya soo anaga waxna la yeeli lahaa waa kana taagan maxana la yeela marka waxa waaye qofkii raba khasab ma jiro qofkii raba inuu caawiyo waan fiirinayaa caawintiina anuu kolley English ku hadlaya Soomaali ku hadlaya wax waxeeyaya kolley wax kasta anigu goolkayga meel buu yaala waan hadlaya laakiin idinkaan waxaan fiirinayaa tomorrow marka aan meel gaaro maxaa ii soo qabateen idinka idin hortaagan tahay maxaa idin hortaagan qofkaani shalay waa soo survive maanta waa survive gareynaya waa socdaa laakiin waxaan rabaa yaa ila soo dadaalay hadda gabadhan Sahara Cali la dhaho iyo gabdho badan oo meeshan soo gala boosho iyo gabdho badan baa jira oo aad iyo wiilal badan oo aad ila soo halgamay baa jira aad iyo aad intaan hadlaayay ila soo halgamaya jira so wixii aan meel ku gaari lahayn weeye koos maxaa lagu qabanayaa bari ilmo badan oo Soomaaliyeed bi albaaba u noqonaysa wax badan oo khalad ah oo ilmaheena lagu hayay baa laga baqayaa markaad ka raysid dadka xumaanta nagu haya markaad ka raysid wanaageena soo baxaya waa neefsanaynaa muruq adoo ku haya hadii muruqa laga duubo waa aragtay neef baa ka soo baxda alla niban raaxadana ma noo dambeysay soo wadankan kuwa hadda yaryarka baa bari carruur ku dhali doona marka anigoo MMS ah waxaan idinka tagayaa intaas waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo siyaadka la sheegayo waa ninkan 64 yaa criminal traffic haysta ganacsadaha magaalada ugu waaweyn suudka ugu qurux badan qaata gaariga ugu qurux badan wata marka waa kana ninka isuud gareynaya muxuu rabaa inuu lacag igu control aniga oo aniga inta i bajiyo oo i xiro baal uu taray gareeyo laakiin si kasto la ii dacweeyo anigu kale recordkayga waa nadiif ninka i dacweynayana recordkiisa waa kaas halkaas yaala waa idin salaamaya anigoo MS weeyaan waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo markastana waxa ogaataan inaan anigu meel gaarayo mar walbana waxaad ogaataan hadaa ay caawisaan iyo hadayna ay caawinba anigu hadaan wax noqdo qof kasta oo dulmana ahow inaan ku hadlaayo oo ku difaacayo mar walbaba ogow soo waxaan ku difaacaya oo kuugu hiilinaya oo wax kuugu qabanaya Allah dartiis non inaan ka raba adiga waji non inaan ku leeyahay waxaasan kaaga baahanahay ma jirto hadaadan maanta waxba isiin iyo hadaad maanta wax isiisid mar walbaba anigu dulmanaha waa caawinaya qof kasta oo dulmana ah wiil gabar hooyo ilmo nin ku doonaba ahaade anigu waa caawinaya so waxaan idin leeyahay waa inoo ballankeenu waxa weeyaan goofanka markaan soo dhigo insha Allah biidnillaahi alkariim waana soo live-na waa soo noqon doonaa waanan arki doonaa insha Allah wixii resultiga soo baxayna sidii loo soo dhigay warqadii maanta dhaweyta aan soo dhigay oo ahayd inaan maxkamadii ku soo guuleystay markaan taas ba aadayay idima oran hal ay caawiyo because lawyer baan qabsado because idima weereerinaynin laakiin hadda waxaan rabaa maxkamadahan badan in aad ila caawisaan hadaad ila caawin kartaan hadayna ila caawin karinna mar walbaba anigu hooyadiin baanahay waan idin jecelahay I love you waa idin salaamaya waa idin jecelahay wax walbana halkaan ku soo gudbinaya insha Allah biidnillaahi kariim in kastaba ha socotee halkaan step by step maalin walba halkaan ku soo gudbinaya soo wadankan waxba lama qarin karo wax walba waa sheegi kartaa aslaan aadan qofkaas wax ekastara ka sheegaynin waxa meeshan ku yaala waa ka sheegi kartaa qof ku qabsanaya malahan saas ay idinka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh